السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa beerta lagu magacaabo Candha Bahal diicoonka runtii waa beer aad iyo aad u macaan jawigeeduna maartay aad u fiican yihiin in lagu ciido laguna qadeeyo jawina lagu qaato aad u fiican tahay maartay reer waaciye baan ugu casuumay beertan ma sha Allah waa u jeedaan nimcada iyo barwaaqada taala meeshan waa maasantihiin fiidiyoga waa soo daawanayseen ila dhamaadkan insha Allah waa daawan doontaan بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu maanta maxamed iyo ninka la yiraahdo Sharma ninka odaygayo ya Cabdirasaaq oo ah raggan wacyi ugu nimid waxaynu soo wadnay teamkii Hiil walaal barnaamijyada soo wadeen waxaynu nimid ka soo wardoono dhalinyaro baan ku soo dhaweeyaan imaan laakiin gaar ku marna mooyee teamku badan yahay maantana waxa weeye kalfadhigu waa badan yahay hadda dadku si fiican uma soo wada fariisan laakiin waan soo wada fariisan doonaa insha Allah waaciye Carba Candha Bahal magaceedana si uma karayo waa la wada dhan yahay tiinkii haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Sharmaaka walaalkii Sharmaaka Tayga waa degmadeenii ku soo dhawaada insha Allah si fiican baa soo wareysanayna wada fariisanayna hadii Allah idmo waxaan markood u mahad celinayaa bulshooyinta ku dhaqan maartay boqortooyada Qardho baa mahad celinaa soo qurux badan noogu soo dhaweysay magaalada Qardho maanta waxaynu casuumaad ku leenahay degmada Waaciye waliba Waaciye kaliya loo maartay loo koobino waxa waliba la geeyay meel aad iyo aad maartay jawigeedu uu macaan yahay meel aad iyo aad maartay hawadeeda iyo dhaqankeeda iyo wax kasta ay u fiican yihiin oo lagu magacaabo Candha Bahal runtii waa meel jawigeeda aanan hadda qiyaasi karin tiimku maanta waxay la faraxsan yihiin reer Waaciye maartay anaguna martisoorku asaga kala duwan anagu waxa leenahay marti idiima nihin laakiin waxaan nahay walaalihiin oo soo booqday oo maartay sheegad u yeerateen waxaan tusteen jacaylka iyo muhibbada aad noo qabtaan waxaan tusteen rabitaanka iyo dadaalka maartay aan wadno sidii aan ku sii hore u socon sheego inta dalka joogto waa wada joognaa qurba joogto waxaan rabaa inaan u sheego barnaamijkan muhiimadda ugu weyn oo aan ka rabno waxa weeye waa idinka maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan wadankii xaaladda uu ku sugan yahay ogaataan waxaan rabnaa wadankii inuu amni yahay inaan ogaataan
waxaa kaloo rabnaa bilicda iyo quruxda iyo nidaamka iyo maaragtay dadku sida u dhaqmayaan inaad ogaataan waxaan rabnaa inaad ogaataan doogii iyo nimcadii iyo buurihii muddadu idinkugu dambeysay ama qaarkoodba aysan arkinba inaad aragtaan baynu horta barnaamijkan aynu u diyaarinay una soo duubnay dadka waxaan ka codsanaynaa horta barnaamijkan qof kastoo arka inuu gaarsiiyo walaalkiisa aanan arkin sida qurba joogta oo kale loo gaarsiiyo qurba joogta aad u anfacaysaa because geeli baa ku jira dhirtii baa ku jirta neecawdii baa ku jirta buurihii baa ku jira dadkii oo kala duwan oo magaalo kasta kala jooga sida Qardho Waaciye Garowe intii aan wadada soo haynay ku jirta hatta lahjaduhu way kala duwan yihiin oo maartay lahjaduhu hatta isku mid maaha maartay sida qaabka loo hadlayo حتى اسكو مid maaha si marka idinku ajawigeena aad u bedelataan muuqaalkiina uu fiicnaado qofkii arka muuqaalkan horta si share gareeyo sidoo kale waxa ka codsanaynaa YouTube page-ka lagu magacaabo Tayga Media oo maartay hadda aad shaashada uga jeedaan Tayga Media waxaad ka codsanaynaa in horta marka subscribe aad saartaan si aad ula socotaan xaalad walba oo markaas maartay ay wadankii ka taagan tahay iyo quruxdii ilaa Boosaaso iyo Yemen iyo meelo badan ma tagi doona insha Allah inta dabadeed iminkana waxaan u soconaa qadadii ayaynu aadaynaa naga harimaysan laakiin waan la soconaysaa insha Allah Mariya insha عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu joognaa degmada Waaciye sida la socoteen barnaamijku wuxuu barnaamij hore u soo socday ilaa iyo maartay Qardho iyo Gorina maartay boqortooyada Qardho iyo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa degmada Waaciye oo si qurux badan maartay maanta neefna ugu qashay degmada maanta la sheegi karin oo sida idinkuba aad daawanaysaan baad maartay qiimeynteeda iyo qadarinteeda baa leedihiin runtii waxaan rabaa inaan si gooni ugu mahad celiyo dhalinyarada maartay reer Qardhood oo naga soo raacay Qardho iyo kuwa maartay Waaciye oo nooga horiyay maartay duleedka magaalada soo qurux badan noogu timaadaan caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Garowe oo waxa idinku soo dhaweyn doono waa mid idinka argoosan doono insha Allah xagan waxaan ku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyarada Hiil Walaal waxaan si fiican u soo dhaweynaa degmada Waaciye oo ah degmadoodii insha Allah marar badan waxaan ka rajaynaynaa saas kale noo soo booqdaan insha Allah annaguna hadda si fiican baan soo dhaweynay ilaa iyo sogotintana si fiican baan soo gootnaa hadii Ilaahay idmo waxaan leenahay ku soo dhawaada degmadeenii mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah khayr badan baan rajaynaa iyo safar raaxo insha Allah hadalka aad buu mahadsan dhalinyaradan garbaheena fadhiya Abdulsaaq Sarmaake iyo Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Mubaarak iyo Ciise waxa weeye aad baa ugu mahad celinaa tiimna wuxuu naga soo raacay meesha la yiraahdo Qardho tiimna wuxuu inooga soo horeeyay magaalada Waaciye aad baa mahadsan yihiin tiimkani waxa weeye tiim ku midoobay Hiil Walaal waana tiim waxa weeye isku wada xiran meel kasta joogan barnaamijka waxaynu wadnaa Hiil Walaal lahaa barnaamijkaas oo ku salaysan sideen waxa weeye وعاون له dadka masaakiinta ama dadka tabarta daran iyo dadka aadka u liita yani waxba haysan barnaamijkani wuxuu daaran yahay ama imaanshahani magaalooyinkan inaanu ku xogogaano magaalada sida loo naga ilaawinina YouTube-ka subscribe like iyo share ya Tayga Media insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa tiimka Qardho waxaan leeyahay dhalanta Waaciye oo maadsantihiin soo dhaweyntaana soo dhaweyseen socod qiimo iyo qaayale waxa farxad naga mudan waxaan leenahay soo dhaweyntiina mar labaad waxa weeyna waan isugu doonaa sidaan soo dhaweysanteen waa ku mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأوجد دام بوحنا صحر من برامج كني مارته هيل ولال waxaynu maanta joognaa sida horeba ogeydeen degmada Waaciye ayaynu joognaa anagoo magaalooyin badan soo marnay Qardho waxaynu ka soo qornay dad aad u tiro badan oo dhalinyaro ah oo maartay barnaamijka Hiil Walaal nagala shaqeynaysa sidii ay dadka masaakiinta ah u maartay u garab istaagi lahaayeen u gacan qaban lahaayeen oo maartay sheeg caawin lahaayeen kidis nooga dhigi lahaayeen wax kasta oo ay gacantooda ugu jirto sida ay u siin lahaayeen maanta waxaan joognaa degmada Waaciye dhalinyaro badan baynu maartay sheeg ka qornay degmada Waaciye kulligeen waxaynu nahay Hiil Walaal kulligeen waxaynu nahay Hiil Walaal